in ka badan 30 ruux oo qaxooti ayaa toddobaadkan horraantiisii ku geeriyooday doon ku qarqoontay xeebaha dalka Yemen. Doontan ayaa la sheegay inay ka soo baxday xeebta dalkaasi waxaanay ku sii jeeday dalka Djibouti. Rakaabka saarnaa doontan ayaa isugu jiray qaxooti Soomaali iyo Itoobiyaan kuwaasi oo ka soo cararay colaadda ka taagan dalka Yemen. Warkan ayaa waxaa si rasmi ah u xaqiijiyay hay'adaha kale ah hay'adda caalamiga ee socdaalka adduunka IOM, hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay iyo hay'adda qaxootiga ee UNHCR. doontan ayaa 23kii bishan ka soo shiraacatay xeebta Bureeqa ee dalka Yemen waxaanay soo qaaday gacanka cadmeed iyadoo u soo jeesatay xeebaha dalka Djibouti. dadka doontan saarnaa ayaa lagu qiyaasay 152 ruux. Soomaalida saarnayd doonta ayaa ahaa 51 ruux oo Soomaali ah halka tirada soo hadhayna ay ahaayeen Itoobiyaan. intii ay jidka ku jirtay doontu ayaa waxaa loo geystay dadkii saarnaa doontaasi jirdil, kuwaasi oo ay fuliyeen jirdilkaasi dadkii mukhalisiinta ah ee waday doonta. raggan mukhalisiinta ah ayaa damcay in ay baadhaan dadka iyagoo ugu dambeyntii rasaas ku furay rakaabka, balse markii ay rasaastu bilaabantay ayaa waxa ay dadkii doonta saarnaayeen bilaabeen in ay isjiirjiiraan. dooniduna waa ay qarqoontay waxaana la sheegay in ay ku qudhbaxeen 30 ruux. hay'adda socdaalka adduunka ee IOM oo kaashanaysa ilaalada xeebaha Yemen ayaa ku jirta baaritaanka shilkani. hay'adaha DRC iyo Intersos ayaa iyaguna qayb ka ah baaritaanka shilkani waxaanay gargaar dawo iyo cunto iskugu jiraba gaarsiiyeen dadkii ka soo badbaaday doonta. IOM iyo UNHCR ayaa muddo dheer si wada jira uga digayay xaaladda colaadeed ee dalka Yemen, waxaanay sheegeen in colaadda dalka Yemen oo aan waxba laga qaban ay halis ku tahay ku xadgudubka xuquuqda aadanaha dadka jilicsan iyo qaxootigaba. waxay hay'adahaasi ka digeen in qaxootiga lagu qasbi doono in ay si dhaqso ah ugu laabtaan dhulkooda. iyadoo ay Yemeni u tahay hoyga qaxooti badan ayaa la sheegay in sanadkii 2017 ay 87,000 oo qaxooti ahi ay safar halisa kaga soo tallaabsadeen badda cas iyagoo ka yimid geeska Afrika. colaado badan oo ka dilaacay dalka Yemen ayaa sababay in qaxootigu la kulmo xaalado amni iyo bini'aadanimo oo xun. cali maxamed xuseen, Saab TV, Hargeysa.